waxaan rabay sheekh inaan weydiiyo jazakallahu khair waxaa jira dad Soomaali oo badan oo joogay Nairobi qaarkood inay joogaan inta badanna waxay aad u isticmaalaan social media sida Facebook-yada pages bay ku leeyihiin qoraal bay ku leeyihiin hatta pages aan arkay oo Facebook aan ku arkay waxa kamid ah mid ay nolosha cusub u bixiyeen waxa lagu soo faafiyay boogii bari dhaxdaas ay hadka ridada maxaa corona ahaa ee radin jirtay ayaa qaarkood lagu soo faafiyay marka waxaan yaqiinsaday ninkii yani isbuuga soo saaray inuu qoladaas dhan inuu ka yimid ama yani fikirkiina ay wada taageersan yihiin marka saas daraadeed qaabka ugu wanaagsan ee qolyahaas looga hortagi karo inta badan waliba xoog waxay saaran social media aad ayay ugu badan yihiin hadday noqoto baltoga hadday noqoto facebooka hadday noqoto yani qaybaha kale marka qaarkoodna Nairobi bay nala joogaan oo ay gaalnimada ku faafiyaan ummadii Soomaaliyeedna muslimiinta ay maartay leexinayaan marka qaabka ugu wanaagsan ee qoladaas looga hortagi karo iyadoo maartay si wada jira waa noocee jazakallahu khair hadday social media isticmaalaan oo idinku maxaad qabanaysaa ya war idinku ma laf baa toobaysaan social media maxaa u barateen haddaydan dacwada ku faafinin iskuulaad ka baxdeen iskuulaad dhigataan muxuu ahaayay ma baadilka idinka xoog badan kii baadilka watayba waa ku soo daadinaya xaqa ku daadi adigana ya xaqa ku daadi meeshay galaanba waa in xaqa laga dabageliyo tabardarro waxaa ugu filan inna kayda shaytaani kaana daciifan soo ilaahay ma dhihin inay uun social media iyo derbiga gadaashiisa wax ka soo tuurtuuraan mooye bannaanka isma soo dhigi karaan ya kii buugga qoray oo waxoogaa madaxa soo yara taagay wixii ku dhacay waa la ogaa soo ma marka car bannaanka is keenaan dacfigooda waxaa ku tusaya iyo tabardarradooda derbiga intuu miiska hoostiisa galuu meesha wax ka soo tuurtuurahay marka taasaa ku tusay inay muxuu ahay wax la-aan yihiin